الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ميل جوجان بوحان ربا inaan ugu hambaleeyo munaasabada qaaliga ah ee 26 Juun 60kii lagu gaaray xorriyadii qayb kamid ah dhulka Soomaaliyeed ka xorowda gumaysigii calan Soomaaliyeed la saaro. Halkaas waxa ku soo gabagaboobay halgan dheer oo gobonimo doon ah oo ummadda Soomaaliyeed ay u gashay inay xor ahaato sida ummadaha kale ee adduunka. marka waa isugu hambaleynayna isugu bogaadinayna dadkii ka soo shaqeeyay oo naf iyo maal ku bixiyay waqtina waa u duceynayna runtii waxay qabteen shaqo aad u weyn waxaan shaki ku jirin laakiin mas'uuliyadaas mid lamid ah ama ka weyn inay maanta nasaaran tahay isu soo celintii ummadda Soomaaliyeed iyo mideynteedii iyo ummadda Soomaaliyeed wixii ay ka filaysay xornimada iyo dawladnimada oo aan sidii la rabo u fulin in laga shaqeeyo. arintaasna waxay u baahan tahay dadaal aad u fara badan, waxay nooga baahan tahay in la nimaado aqli cusub iyo fikir cusub in la nimaado nooga baahan tahay. marka waa rajaynayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala kana baryayna in Ilaahayna waafajiyo anaguna aan dadaalno. runtii wax iska iimaanaya ma jiraan dadaal la'aan inaan wax ka bedelno xaalkeenana waxay ku xiran tahay inaan ka bedelno habkan u fikirayno. dawladnimaduna waxay leedahay qawaacid iyo usus wax lagu dhiso ama lagu raadiyo. marka dhamaanteen waxaan naga rabaa inaan u jeesano dhisma dawlad cadaalad ah oo ummadda midaysa u dhaxaysa keentana horumar iyo barwaaqadii laga sugayay. dawladna waxay ku dhisantaa waa heshiis iyo sharci. marka taasaana ugu horeysa in laga bilaabo oo wixii hadda lahaayana lagu far adeego wixii dhimanna la raadiyo. sanadkan sanadkiisa Ilaahay waxaan uga baryaynaa ummadda Soomaaliyeed nabadgelyo horumar dhinac walba leh. waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.